الحمد لله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي تضباط هي كتاب كأن تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. بابك أفراد ابن القيم وحو بابيي إن المه مركز دشان لغو آدامو دكت ملكتاه لغونا عقيمو دكت بدحداه أرنتاس مركا محاكو سو أرورا مصحبا مسوحبا كجرا ضعفئة إلا نقف والبا هذا الكيس وحنا ولا قادم وحنا ولا ردينيا إلا صاحب هذا القبر سيدي علماء يراهدين رسولك صلى الله عليه وسلم مركي laga reebo inta kale warkooda waxna waa laga qaadi waxna waa lagu celin in ilmaha lagu aadaamo iyo aqimka markaan fiirino laba xadiis baa taqriiban ku soo arooray xadiiska Abu Raafic oo Imam Tirmidhi soo saaray wuxuu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu dhashay wiilkii la oran jiray Xasan bin Ali oo gabadhiisii Faatima ay dhashay wuu ku aadaamay xadiis Imam Bayhaqi soo saaray fi Shu'ab al-Iimaan ayaa isagana wuxuu leeyahay wuxuu ku aadaamay dhegta midigta ana uga aadaamay tan bidixda ana uga aqimay laakiin Ibn Qayyim wuxuu yiri sanadka waxa ku jira daciif weeyaan hadaba mas'aladan aadaanka iyo aqimka ah siday tahay culimada intaynan xadiiska u gelin culimada waxay qaateen sida aimada afarta oo kale Imam Shaafici, Imam Ahmed bin Hanbal iyo Imam Abu Hanifa waxay qabaan inay aadaanku uu yahay sunne laguna aadaamay ilmaha wax dhiban ayna lahayn. Imam Malik isagu wuxuu yiri maya isagu xadiiskan fiirinaya inuusan saxiix ahayn. طيب علماء معاصرين حتى مركا لفيريو شيخ ابن باز يا شيخ ابن عثيمين يا وحي قاتين يقولون إني تهاي سنة أي تهاي أو واحد بعتين لهين آذانكو أقيم كيسو ما وضعيف وهي شيخ الألباني رحمه الله أو أدي شيخ يسوي أحاديث لو قدم بي رنتي isagoo waagii hore wuxuu sugay inay tahay sunno in lagu aadaamo isagoo xadiidkan labadan xadiis isku daray qaateen inay isquweynayaan oo isxoojinayaan laakiin kitaabka Shu'ab al-Iimaan markuu helay waagii dambe wuxuu yiri waxaan ogaaday inuu niman ay ku jiraan kadaabiin sanadkiisa xadiiskuna uu yahay daciifun jiddan iyo mawduucu galayo sidaas daraadeedna wuu ka laabtay inay sunno tahay in lagu aadaamo marka waxa way xadiiskii inuusan marka sugnayn ayaa ka soo baxaysa meeshii sidaas daraadeedna aynan aadaankii iyo aqimkii midna uusan daliil xoog la haysanin insha Allah taala sidaasna waa sidoo sheekhu uu qabo almuhim marka waxaad moodaa masalada culimada islaamku masaa'isha badan inta badan khilaafaad baa ku jira marka qof soo afjari karaana ma jiro sideedaba ma soo afjari karaysid adigu marka insha Allah taala waxaan uga tagaynaa al-amru waasi' inuu yahay qofkii qaatay inuusan hadii xadiiskiisu saxiix oo sanahayn Sheikh Al-Albani wuxuu qolada aan qabin in xadiiska daciifka lagu dhaqmaayo sidaas daraadeedna masaladii kulliyanba uu ka laabtay insha Allah taala sunnadii iyo khayrkuna wuxuu ku jiraa in sunnada la qaato biidnillah. masalada labaad oo baabka shanaad waa istixbaabu taxniiki in ilmuhu markuu dhasho intii timir la soo qaado dhamxalaga meeshan koro loo marmariyo taas iyaduna waa saxiix oo saxiixaynka ku soo aroortay Abu Muusa wuxuu leeyahay markii ilma ee dhashay ayaan rasuulka u keenay sallallahu alayhi wasallam wiilkii wuxuu u bixiyay Ibrahim wuuna u timir intuu soo qaaday wuuna halka dhamxalaga u mariyay wuxuuna ugu duceeyay barako kadib wiilkii markaa ii dhiibay waxa kale sugan oo saxiixaynka ku sugan markii inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ibn Abi Talha wiil oran jiray Abdullah oo dhashay Abi Talha oo Muslim zawjkeedii uu magac bixiyay Abdullah u bixiyay Bara iyo Anas iyo buu dhashay iyo la dhasho walaal la ahaa waxaana ku sameeyay Bukhari oo soo saaray muslimiintu markii magaalada Madiina yimaadeen inay aaminsanaayeen nimankii yahuudda ahaa waxay dhahan waan sixirnay oo ilmo idin dhalan maayo oo marka ina Zubayr ibn Awaam loo dhalay wiil Abdullah loo bixiyay meesha Quba markii yimaadeen muslimiintu aad bay ugu farxeen wayna takbiir Allahu akbar ku farxeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam baa loo keenay rasuulkuna tahniigi buu sameeyay intuu timir soo qaaday ayuu u mariyay halkaas wuxuuna ugu duceeyay
baraku ugu duceeyey, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo muhaajiriinta loo dhala ayuu ahaa. marka sidaasa waxaa soo bixi insha allahu tacaala xadiidka taxniiga oo ilmaha in dhamxalaga loo mariyo markuu dhasho timir waxa ugu horeeyay uu noqdo timirta wuxuu afka geliyo inuu sunno yahay, laakiin aadankii qaamadu iyagu sunno ma aha. wallahu aclam.